bismillahi raxmaan raxiim waa xasuusin u baahan inaynu isxasuusino tani qof kastoo soomaaliya oo qaangaadi u baahan yahay inuu ogaado afkaaga hooyo iyo dhaqankaagaad ku noqonaysaa wax af Finnish aad ku hadasho, af Swedish aad ku hadasho, af Norwegian aad ku hadasho, af Hollandiis aad ku hadasho, af Ingiriis aad ku hadasho, af Jarmal aad ku hadasho, af Danish aad ku hadasho, waxba meel kuma gaadhsiinayo. Dadkeena maanta Yurub ku dhashay ama ku koray ama iska dhiga dhaqanka inay qaateen iyagoo waaweyn yimi kalsoonida ku yar hoosta way ka maran yihiin waayo afkoodii hooyay ka tegeen, dhaqankoodii hooyay ka tegeen. Cilmi nafsiga ayaynu ka baranaa waxaad wax ku tahay afkaaga hooyo waxay ahaan jirtay dhulkaaga hooyo ayaad wax ku tahay afkaaga hooyo iyo dhaqankaagaad wax ku tahay. Markaas waxaynu u baahanahay inaan af Soomaaliga baranno si fiican waxaad arkaysaa 20 jir 40 jir 50 jir Soomaaliya oo xaas leh oo jumlad wanaagsan weer fiican isku xidhahayn. Hadalku waa sida dawaarka oo kale waa dharka la tolayo kale waa inaad barato sida la isugu xidho sida la isugu talo. Qof inuu ku tusay u baahan tahay inaad adigu baratay u baahan tahay oo maalin oo dhan kacaakufka sida socodka lagu barto kale weeye hadalkuna. Qof waxaad arkaysaa weyn oo aad oranayso tababar fiican muu helin Soomaaliga ku dadaala.